waxaan arkaa laba qofood oo midi xooggiisu uu ku dhisayo waddankiisa, midina uu colaad iyo in dib loo noqdo hurinayo. waxaan arkaa laba qofood oo midi aqoontii uu soo bartay waddanka ugu adeegayo, midna uu ku khaldayo kuna burburinayo waddanka iyo dadkiisa. waxaan arkaa laba qofood oo midi jaahil yahay afkiisa iyo addinkiisana laga ammaan helo, dadka iyo waddankana aan waxyeello u geysan, midna muran aan dhammaan iyo aqoon darro la soo taagan dadka, gar iyo gardarana aanan oggolayn. waxaan arkaa laba qofood oo midi ka soo kacaya guri jacayl wadaninimo ka jirta, midina uu ka soo kacaya guri dil oo kala qaybi Soomaaliya lagu heshiiyey. waxaan arkaa laba qofood oo midi ka fekeraya sidee dadka u boobaa hantidooda oo lacaga badan uga helaa anigoo sita magac dowlad, midina wuxuu ku fekerayaa sidee waddankaaga u yeelan karaa sharci kiisa weyn iyo kiisa yar u cadaalad fala. waa su'aalee haddaba adigu qaybtee Soomaaliya maanta aad uga jirtaa? ogow taariikhda sida halyeeyadii dalka soo maray iyo kuwii soo burburiyeyba loo xuso ayaa adiguna laguu xusi doonaa marka aad dunidani ka tagto, adigoo dadka kuu ducayn kara wanaagna lagugu xasuusan kara. markaad dunidan ka tagtana dadkuna kuu soo ducayn kara. ha u weecan in habaar iyo magaxxumi ay kaa raacdo wax yar oo aad samaysaa. adduunyadaada iyo aakhiradaadana ha ku waayin maanta waxaad samaynayso. haddaba Soomaaliyey, waabaa inoo bariyey dhab ahaantii, daruur baa inoo curatay, dooggii baa cirka isqabsaday. muwaadin, badbaadada waddankaaga iyo adeegiddiisa mas-uul baa kaa saaran. fariintani waxa ay idinkaga timid walaalkiinna miskiinka ah ee Liibaan Cabdi Cali. adiguna waad mahadsan tahay dhegaysiga. fadlan isku day inaad la wadaagto saaxiibadaada iyo qof walbo aad la jeceshahay wax walba oo wanaag ah oo qayb ka ah in waddankeennu aynu horumarsanno.